ماي أمس صوبته أو حنوا أمس سنين وعن كوت كيدني معنا كوت كني هذا الكية ورياش ذلك اللي قد له أردن وضدك وحرف بدنا صحافة يعني أنا وح أمس سنة قف والبو وقت هذاك سو شقي أنا قيب كصحافة إنه الفدي سؤال لما يسترنته ويأرجنا من كل فيني والله هو سؤال هذا قوي طبعا وحياه ويش كتيران بدن أنا هذا حسن أنا وحكم عددك مارتي وحي تجي ولنبا حلقة أنا موت وحول با لنبا مركز وحسترادي ويكعجب قلني يعني وحكلا ما تقانا كاغسي درارية لكن وحياه الله يا وحكم إذا هاي تميديا كتير هذا كورباني إنك لو صاحبك يا وريئة ayaa inala xira marka waxyaa marka aan ku qasto waxa kamid markii la xiriyay mobiladii aan wadanay lagama qaadin markaas waxaan lagu xiray qol aad iyo aad maartay qof bila aadan aan lagu xiri karin nooc kala aad kama sheekay karo qofka sawirka arkoon baa ka sheekayn kara markaas inta sawirkii qol ku galnay waan Facebook soo gelinayo dadkii la hadalnayo sawirradii anaga hor anaga xiran ba sawirada marka qof walba wuxuu leeyahay ma xirnidee waxay tahay ilaa markii dambe barnaamijkii aan sawirada ku qaadinay ay hatta xabsigii faa'iido u noqoto dadkii hay'adihii maartay UNDP dadka maartay arrimaha ka shaqeeya ay mashruuc weyn oo station weyn lagu dhisay meeshii laga bedelay oo dadka ilaa warmeesha dadka lagu xiray maxay tahay marka arrimahaas oo kala xogaa intaan ku jiray meenadan aad ka maartay wala yaab ka badaa حقيقة والله أنا ما دي كرو معناها هل إلا يصدح دمان ذكي أنكوي إني معرفتي فلارك نوع عاسية وحي أهين دد أنا أدرس كلونه هي ولبا معناها قربهي جو كلي أهين يعني ما كان كهل ليك شكينيو أصحابتي دي أهين دد وحي أهين معرفتي أنا ودانا قبل كم يدقوا كلي صحافة وكدونا يقول هذا كلام dadka ka shaqeeya saxaafadu waa dad walaalo oo kala ah way iscaawiyaan way iska warqabaan marka dhammaan dadkii aan ku weynay halkaas waxay ahaayeen asxaab aan oran karo muddo mid kasta waqtiga tiis u timid oo waxa weey ilaahay naga jeclaaday aad bay saameyn ugu yeelatay nolosheeda aniga haddana waa ku sii dhabar adeegay inaan sii joogo ka sii warqabo oo yani dhammaantood markii mid iyo laba laga tago caruur bay ka tageen iyo xaas bay ka tageen caruurtooda waxaan malanayaa hadda waa dad waaweyn weeye intaas hadda ay maqnaayeenna ma timin aabbala'aan oo adeeradood anagoo aba joogna waqtiyada maaragtay dadku ay caruurta aabahood ay tabaan oo kale waa xilliyada maaragtay farxadda ciidaha oo kale dabcan ciyaalkaas iyo kuwa anagoo aan dhalnay waxaaba horumara kuwaas aan ciidooda iyo farxadooda iyo ka shaqeeyno siba anaga dhaxdeeda wariyaasheeda gobolka oo de kooban dad badan ahayn marka waa dareemi kartaa maartay meeshay ay looga yaalaan dadkaas maadaama dad si fudud aan ku iloonays ahayn oo de familiyadeena ay ka mid yihiin de aan ognahay inay yihiin dad naga mid ah caruurteena yihiin aan maartay aan ka warqabno waqti kasta marka dad ay looga karna ma aha ama aan oran karno mid iyo mid ama kala jeclaysan karno laakiin dhammaantood waxay ahayn aniga maar dad ehel ah oo asxaab ah wallahi dhammaantood macnaha meesha lagu dilay ma joogin laakiin dhammaantood magaaladan la joogay waxa laga yaabaa mid kastana in waqti kooban ay maartay igu dambeysay haba igu kala xanuun badnaadeen mid aan markaa kala harnay ama mid aan markaa isku ceynay ama aan balansaneen ha ku jirin laakiin dhammaan asxaabta meesha aan ku weynay waxay ahaayeen asxaab maartay waqtiyo dhow ay ugu dambeysay oo aan kul kala socday bay ahayd laakiin aan joogay dhammaantood meesha lagu dilay askood may weliga kuma fikirin xaqiiqatan wax macnaha waxaan jeclaysan jiray inaan sii joogo shaqadii ahayeen ahayo dadka u shaqeeyo
يعني وانا درسنا قف كدي وقت ولي وقت سمنا فيه haddana waxaan aad u jeclaa inaan maartay aan xirfadaas meesha aan joogo aan ka tagin oo aan sii joogo waa macna weyn dhacday hadda waa aragtaa ilaa intii hadda magaalada dad maartay asxaab aan ku weynayay ama aan ku weynaynay dhamaantood media hadaan nahay waan joogay wada shaqeynayay iguma dhalan inaan maartay marna ka tago kalkaay طبعا dadka dhan baa la yaabay arintaas ma ahayn waxana maartay gaarna waa ma ahayn gobol kalkacay waa magaalo yar waa magaalo maartay kooban waan la siiqana dad qof kasta marka qof walba waxa laga yaabaa inuu ehel iyo asxaab iyo isku group ama isku team ay yihiin طبعا sida dadka ugu ficeen oo la yaabeen maanta adiga la qaay ahaan hadii aan waxaan ku ogeey maanta lagu sheego qaabka aan noqonayso dareemisa marka aad bay maartay nooc ajib gelisay haddana waxa guud oo isku soo taabatay guud ahaan bulshada ku nool deegaankaas may sababtoo ah waxaan u aaminsanayn oo aan ku adkeedinaya macnaha aan ku adkeynaya hadalkayga wariyaasha dalka lagu dilo oo dhan waa dadka ugu xirfadda badnaa saxaafadda يعني أنا واحد أمسنا قف والبا وقت قاعد سوي شقي أما قيب كأس صحافة إنه الفدي سؤال لما يسترنته ويأرجنا ما كنا فيه يعني وقت أذق أو أي أذق تهاي إن صحافة سوماليا لقى شقيه ذيك شقيني أي كمد أهاين وضد هو انتظروا أي أد أسريسو وتفكر كما كان لا يوم فافريبك وضد ديارن توضي يوحصو صار كذا أد أسريو نحدحات أخلاقيات كصحافة أما أخلاق الجودة والباهنة هذا قرنية مركا ما قالوا فيك كساني والله وكاف يكرر ديري والباهنة هذه جرتا وأركتي وكاغا مشى كان كرو والباهنة على الهين فافريب والدنيا على الهين أنا مارتي هوبسين على الهين أنا حدود الهين meel laga soo galo iyo meel laga baxanayo maartay aan kala garanayn waaga hore qofka xataa al aqal markuu qofka xataa wariye noqonayo haduu idaacad ku tababaran wuxuu ka soo bixi jiray macad ana macad ugu bartay warbaahintu tagi jiray waxa uu soo baran jiray basic ama asaasiyaadka isku soo dhisi jiray kadib wuxuu imaan jiray idaacadii ama warbaahintii ama TV-gii iyaga haddana si tababar jiray ilaa marka dambe uu noqday wariye xirfadiisa aad u sareyso laakiin maanta وري قفك بيج بسمينيا فيس بيج أما وقت ير كقادنا هل دقة برميشن بسمينيا أما وحياة عاي أما دتك كوف القادين وسوقرية مور فيس وهليا دت بدن ومارتي لصعد هليا ساس قفك وريكو يمرك وحلي وريه بالبلية تقف ما تعتقنا وريه لو تلمامه وأن أخلاق وريه مال وريه كنا قداني يسوي لنا قداني سنجرين ولكن الاختيار فربضان له أيام بين هلك الدقيقة هلان أي بقول كنا قف دعوت دنا وريه لو قمت نامي كرو مركز دي اللي اسمه بربردي كرو وريال شهر وحي أهايين وريال يقانا شقادودا والباهنت وريال ودبر أديقا والشقية سقروح بدن هالعبور له برامج قروح بدن كينا وريال صحراء إلى هذا الموجودة إلا هذا وريال في عم بكرة أبو أقرأ وأخريا حرفة فربدان لقفكم كوريا وقتها وحال ربع إنه وحول باء أما أقوم والبا ويقان وليه وحكي قرنيه هذه جغرافيا تاي هذه هيستوري تاي هذه حسابات تاي هذه سينس تاي وحول وأنا أقول إنه وحكي فاهم كرتا أما مركا أقرصها أما هو أو حوصل برتا بيسي ولا سنتها لكن هذا ورياش يجرون وفيسبوك سوقر وصادق تاسنا دي معها وحمارتي لا بربردي كرو صحفيين تهار معها والله ومعناها وذوقي كواد بنقول كنا طبعا أنا مركان حرفة أمورية مركا هاي وكل هذا مدفر بدن أولاد عن أملينا 10 سنة بنقول شيء إن عن سبورتس نيوز كم ورك عيارها عن مارت عن تبيو وليبا وقت إنترنت وسنجري بكون يلحقيه إنترنت كان مسكمه هيسن تي في ذاك الداون شري
DSTV-ga ESPN-ka iyo wixii kanaalada markaa jiray ama Super Sports-ka inta ka soo habeenkii soo qorto transfer news-ka soo qoro natiijooyinka soo qoro ayaan maalintii dadku u sideen jiray hadda maanta ma 1 minute ay helaysid natiijada ciyaarta socota ma ahayn muddan soo waday waa ciyaari jiray kubadda caadi ahaan ilaa hadda waa ciyaaraa macallin waa soo noqday sports oo macnaha koox weyn oo yani kooxaha heer koowaad gobolka aan joogo ka mid ah Yamas kala dhaho Yamas Football Club ayaan macallin u soo noqday macnaha waa marka laga soo tagay warbaahinta waa bahda kale ee aan ku dhex jiro waa bahda ciyaaraha ama bahda sportska suugaanta meel dhexaad macnaha dadka aad ugu fogan miihi yani marka la dhaho heesaha oo kale miihi laakiin waxa aad u jeclahay oo aad u akhriyaa suugaanta teeda yani qaybta gabayada oo kale aan jeclahay aad baan u akhriyaa taariikhda aad baan u jeclahay sidoo kale haday noqoto dhanka heesaha oo kale waxa aad u jeclahay oo aan dhageysan jiray heesii hore ee qaraabiga ahaa waliba kuwa abwaana gaara jira oo aan heesooda aad u xiiseeyo waxyaabaha ay qoraan jiftooyinkooda aan jeclahay marka kuwaasaan aad haddaan dhageystaa laakiin aad baan ugu xiranahay dhanka gabayada oo kale suugaanta noocaas iyo maartay fanaaniinta oo ku heesa waa aad baan waxaan xiiseeyaa oo heesiisa aad u dhageystaa Allah naxariisto fanaan yiraahdo Cabdiqaadir Xasan Laari waliba aan si weyn ama macnaha muddo fog aan fanka ku jirin waqti kooban soo galay heesiisuna ay kooban yihiin laakiin dhowr hees ilaa 10 hees oo 10 kuwa ayeen xul ayuu maartay qaaday marka asagaan maartay aad u jeclahay markii aan dhageysto واسع قف هم بليهي waxaanu jeclay qofku inuu meel gaaro dabcan hadda saxaafadda waa muddadan ku jiray muddo yar ma aha dabcan waxaan u maleynayaa xilligan soo galay cunuga dhashay mantiqan gaar ah oo aniga maartay igu soo gaaray oo way jirtaa dad yaal arooskooda aan joogo asxaabtii ila shaqeyn jirtay ay dhaleen ayaa maanta media ka shaqeeya macnaha marka aan ka hadlayo haddana asaas ay tahay wax maartay jiro oo waa aragtay senior baa laga gaaraa inaad qof noqotid laakiin qofku inaad meesha u sareysa ka gaadhid inaad gaaro insha Allah wajacala wayahay waxaan kulli waxaan la hadlayaa kuwa isku meeladanahay saxaafadda waxaan leeyahay waa aragtaan sida hadda dadku ay cid la aaminaad ma jirto ولا راديو ولا تي في ولا إنكستو أن فيلي المستقبل لو صار لابن دونه وربعين تدقن كأو إذا عادي وربع تي في دي channel دي لو صار لابن دونه مركز دل أركي مش إكجوكتو برشدة وربعين تنكلا ديجيتال ميديا وحرر ورر بين عبورة فيك نيوز فافنية مركز ورش هذا سحالي هاي اسمع دين إلى الصدا والدنيا دنا كجدالة يعني إنه قفك ودي مركزتا دل كيسة والمركيسة وناقيسة وكشكي وعرفتي ميديو هذا وطن كاستحولية ورباهين هو مركا لنا تي في عالمي الجزيرة أو كله وحي كاجا يسا قدر وحي كل شيء يسا وحيابها قدر قروح بدن لكن وحيابها هو سوى قدر كجرا ما سوى قد بنسو سينا نكسدو كلام سي بي سي مركا لكن ورياش سوماليدا waxaan ku arkay qofka markuu wax dhacaan ama wax wadanka dib u ah wariyuhu qofka uu horeeyo faafinay wariyuhu macnaha ma aha taas wax wanaagsan ma aha qofku waa inuu asagu wadankiisa sida askariga u wardiyo waa inuu asagu ilaalsada macnaha wararka aad akhrinaysid iyo barnaamijyada sameynaysid iyo news ka dhacay iyo qaab kale loo sheego macnaha wanaagsan ayaa jira laakiin hadda sida jirta oo wariyaasha Facebook ku qoray ay sameeyaan oo kale ما أها وحمارتي ونكسن دلك ونكسن معها دلك قرحديس أنا سوبر نكتد دنيا واحد لقيها لا أما وضنا الله المال ميلاد كافة ميلاد وحواك وإحنا ما لمجتو لكن وضك هذا أنجونا مصر هذا ورئيس هذا ودنينا دلك هذا على هذا وحول بقرح بدنا تبيع
saxaafadii mehnadoodana sidoo quruxda badan dhinaca wanaagsan uga shaqeeya